السلام عليكم قرب wanaagsan dhammaan asxaabta ku xidhan barteeda youtube-ka barwaani channel aad iyo aad baan idiin salaamanaa waxaan idinka mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee channelka ugu xidhan tihiin iyo su-aalaha soo weydiisaanba waxaan jecel lahay markasta inaanu idinka soo jawaabno maanta haddaba channelkeena waxaa marti ku ah Roble waa nin ganacsada ah oo dhalinyaro ah oo jooga magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Barakeysan waa nin wadamo badan soo maray wadamada soo maray waxaa kamid ah Rwanda, Nairobi, Tanzania markaa su'aalo ku saabsan Rwanda ayaanu maanta weydiin doonaa oo su'aalaha ka weydiinayno Rwanda isaga ayaa nooga jawaabi doona idinkuna waxbaad ka faa'iidi doontaan Roble horta marka koobaad ku soo dhawo channelka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya inaad ka soo muuqato YouTube channelka waad mahadsantahay guleed sa sharafta leh aad ii soo dhaweysay aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo muuqdo channelkaaga waana salaamayaa asxaabtaada ku xidhan channelka waad gartay Roble waana mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad haddii aan su'aalkaa weydiiyo iminka Rwanda waad joogtay oo waxaad ka mid ahayd ardaydii waxbarashada u tagtay gaar ahaan jaamacadda la yiraahdo African Leadership University ama ALU loo soo gaabiyo loo yaqaano bal waxaad nooga warbixisaa wixii aad Rwanda kala soo kulantay iyo waxay iska shabahaan Rwanda iyo Hargeysa horta anigu labadaba hadday noqoto dhinaca Hargeysa iyo dhinaca Rwanda labadaba jaamacad waan ka galay horta Hargeysa jaamacadaheedu marka la eego dhanka quality-ga iyo sida wax lagu baranayo waxaad moodaa inay imika ay la soo jaan qaadayaan heerarka caalamiga ee wadamada kale lagaga barto haddana soo laabto halkay iskaga midka yihiin jaamacadaha iyo guud ahaanba wadanka Rwanda iyo Hargeysa horta guryada mid baa la odhan karayaayo Hargeysa laga soo bilaabo 2022 koilaatikan malaynayaa Soomaaliya cusub u qabsaday waxaad moodaa bilicdii magaaladu inay aad u soo laabatay oo maxay yeeday ay imika wadooyinka ka socda iyo maxay yeeday wadooyinka dhameystirmayba la moodo inay la jaan qaadayaan heerka kuwa maxay yeeday Rwanda sibahan marka dhinac laga sii eego wadooyinkii hore aynu sameeyay jirnay meel ahayn drainage meel ay biyuhu maraan haddase waxa loo sameeyay wado ay biyihii ka leexanayaan wadadii caadiga ahayd ay mariyeen maxay gabadhidii taas oo tayadeeda sare u qaadaysa dheereynaysana life span-ka ay wadadaasi yeelanayso marka horta taas aad baan ugu hambalyeynaya maayarka ay magaalada dooratay caasimadda Hargeysa waan gartay Roble taasi waa aragtida guud iminka aduu shakhsiyan markaad Rwanda joogi jirtay ma jiraa shay aad dadka wadankaasi joogtay shayga Rwanda waa laga baran karaa oo waa shay u baahan guud ahaan inay dadku ka bartaan ama ay kaga daydaan Rwanda bulshada Rwanda ha ahaato bulshada Somaliland ama bulshada Soomaaliyeed meel kale ku nool aad oran karto waa shay ku dayasho leh oo qofka muwaadinka looga baahan yahay marka saaw eegta bal maxaad isleedahay ma wadan jacaylka ma dhinaca amniga ma dhinaca developmentiga wadan dhisida maxay kula tahay horta guleeda waabada aad baa u taabatay meelihii ugu muhiimsanaa la oran karay waa laga bayan karaa wadanka hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto xagga nadaafadda hadday noqoto sibahan anu horta intaan joogay waxyaalaha aadka la yaabo waxa kamid ahaa dadkaasi waxa suran kartaa way naga samir badan yihiin markaad eegto inaga marka xagga teknolojiyada aad eegto inagu waxa East African countries sibahan aad bay uga horeeyaan Afrikada kale inteeda kale aad bay uga horeeyaan hadday noqoto Central African meelaha ilaa iyo some part northern kamid ah waxaan ka yaabay intaan joogay waxa kamid ah marka soo kaar soo furo dadku leeman dhaadheer bay ogolaan marka leenka dheer adu umad u qaadaysa Soomaali ahaan oo markii waa dareemaysaa inay culays tahay waxa soo saar qofkan qacanta adag muxuu ahaa meesha soo ama dadka ma ka horeysa ama dadka ma dhaafsataa marka way dhacdaa horta samirka waa mid aad uga dayasho badan mudan baan u jeedaa
in lagaga daydo maxay ahayd dadka ku nool waddankaas ta kalena dhinaca amniga inaga amnigana aad buu sareeyaa run ahaantii marka la eego qaybo kale waddanada sida Soomaalida inagu xigtaa hadday noqoto wadano badan oo dee inaga Itoobiya laftirkeeda ahaa marka inaga amnigana aad buu sareeyaa halkaa waa mid inaga laynaga daydo ay mudan tahay marka kaliya waxaan odhan lahaa halkaas samirka inay maxay ahayd inaga daydaan waayo horumar baa lagu gaari karayaa qofku inuu yeesho samirku waa farbaday inaad waddankaaga intuu dhismayo samirto inaad xitaa haddaad hawl wadato u samirto waa gartay taaba aan kugu sii daray xitaa waxaa jirta mararka Rwanda joogtay maqaaxi wax ka dalbatay in xitaa lagaala raagayo in lagaala raago way dhacday 30 minute wixii lagaala maqnaanayo oo kaasaad oran samayska kacdaaba horta way dhacday kaliya marka dalbato ayaaba laga yaabaa inay 10 minutes kala noqdaan ama 20 minutes laakiin marka xogaa joogto wixii normal buu kula noqonayaa wad la qabsanaysaa waayo wad ku soo talagalaysaa in inta ka maqnaan wixii noqonaya shay ku soo talagasho haddaba su'aashayda labaad waxaan ku weydiin lahaa dadka waddankaasi horta anuusan ku soo arkay aad aragtayba adigu waa dad waddankooda jecel oo marka waddankooda jecel aan leeyahay siyaabo badan bay waddankooda u jecel inay waddankooda de horumarkiisa ka shaqeeyaan inay waddankooda ama la hormariyo dadka muwaadiniinta waddanka u dhashay marka xagga xitaa shaqada noqoto oo ama la hormariya dadka muwaadiniinta waddanka u dhashay marka xagga shaqada noqoto ma is leedahay taasi iyaduna waa mid kale oo dadka waddanka u dhashay marka way dhacdaana marka qaar inaynu inagu shaqo ay muwaadiniinteedu ay qaban karayaan ay ku faraxsiinayaan inay qabtaan inaynu meelaha aynu qof kale ka shaqaaleysano ajnabiga taasi waxaanu aaminsanaynaa inagu imika meherada yar badgulada furanaysaa oo maxay ahayd sida fast food ka meherada yar oo chips iyo chicken yar samaysa mid Soomaaliya koonaysaa ii samee oo ii hagaaji kadibna kii Soomaaliga customers beheli maayo oo way diiri Kenya ayaan saamaxay haddii arkaan qof cadaana ama carab oo wixii sameynaya waa ku soo yaacay runtii way ku soo yaacayaan maaha wuxuu dhadhanka ee waa dadkan ajnabiga ka eegaya marka taas waxaa loola karayaa ganacsiga baa ku xiran inuu horumar ku gaadho si ajnabi loo shaqaaleysiyo waxbarashadii baa ku xiran oo aan ognayo jaamacadaheena ama iskuuladana badankooda waa Kenyan ayaa dhiga ama dadka dayado kala duwan ee maxay ahayd ajnabta marka waan gartay su'aashaas halkaas ku eg tahay su'aasha kale ee aan ku weydiin lahaa waxay tahay iminka saynu ognahay dadkeena waxa ku badan xanuunada macaanka dhiigkarka Rwanda san u joogay aadna aad joogtay horta xanuunadaas xanuuno la arkaba maaha marka halka joogto sababtana waxaan u maleynayaa dadkaas waxay cunaan cuntooyinka waddanka ka soo baxa inay cuntooyinka cunaana waxa sababayaan u maleynayaa dadku dhulkoodii ayay maalgashaan mas leedahay inagu si aan uga tanaasulo waxaan dibaduna nooga imanayno xagga dekadun eegano inaan dadku dhulkeena u soo jeedsado ama beera fadhano oo ama xoolo dhaqano oo caadi iska dhigno ma is leedahay Rwanda xitaa taawa laga dayay gulado طبعا waayo horta laba wax baa sababa inuu dadku wax soo saar sameeyaan mid waa mid marka dhinaca ganacsiga laga eegayo maanta waddankii la aaminsan yahay inuu waddankan waxa soo saaratay ama badeecadaha la soo baxday inaad waddanka loo fikrayso waa talabaade waa haddii ay dan kugu khasabto oo markaa keenaysa in waddankaaga laan loo kaliyahay ama aan wax badalahayn horta seen ognayba Rwanda waa waddan maxay ahayd aanay bad lahayn oo waa laan loo marka horta taasi mid way ku khasabtay waddankaas oo in iyagu wax soo saartaan ay dhinaca agriculture-ka ay horumariyaan haddii noqoto inay kafeega soo saartaan haddii noqoto in badeecadaha kale sida xabuubta badeecadaha kala duwan ee dailiga loo consume gareeyo ay la soo baxaan marka caafimaadkooda waxa sababaya waayo waa dad waxay soo saarteen 100% organic oo la hubo cunaya inaga xagga dhanka kale marka laga eego horta de waxaan soo saarnaa ma jirtaba waxaan doofina marka laga tago waxaan inagu aynu soo saarnayno inno organic
Ma jiraan. very low ha Ah. wasaaradaheenan waxaan ku dhiiri gelin lahaa wasaaradda sida agriculture-ka ta beeraha maxay ta deegaanka inay iskaashi caalamiya samaystaan oo ay dee bal maxay heeday ay investment ku sameeyaan dhinaca dhaqaalaha walina wax soo saarka aad baan ugu maxay heeday waan barnaamijka gartay roob horta su'aal muhiim ah roob la ku weydiin hadday noqoto fiisaha inaad deganaanshaha aad apply garayso laakiin waa ina mid aad ku darsatayo nolosha Rwanda waa qaali aad bay qaali u tahay marka taa laftirkeeda waa inay ay dadku dee xisaabta ku darsadaan waanad ku xisaabtantaa waa wadan horta maxay yeelay marka noloshiisa la eego waa qaali cuntooyinkiisa waxay maxay yeelay waxyaalaha kale uga baahan tahay agabkii adeegii kale oo aad buu uga qaalisan yahay shopping wadankeena aad buu uga qaalisan yahay markaas su'aalkan aan kaaga sii dhex daro oo su'aalihiin dabada kala socota haddii aad sharciga raacdo fiisaha si fudud Rwanda waa lagu helaa Soomaaliya si fudud baa lagu helaa ma adka sida wadamo kale qaar sida imika tusaale san aanu garanayo kale Egypt iyo kale waa inkaarba laakiin Rwanda maxaa u malaynaysaa horta markaad wadankii horta aad gashid waxaad haysataa bil gudaheed aad ku apply garay karto fiisii actually waa 2 weeks ardaynimo markay tahay marka 2 weeks kaas waa inaad ku xareyso waana bilowda processka aad fiisaha ku xareysanaysay kadibna week buu kugu soo baxaya week gudihii dabcan sida kalena hadaad doonaysid inaad ka deganaanshaha iyo ka tourismka waa in labadaba aad bahaleyso aad bi laftirkoogu fuliyo kaliya tayaga dadkan waxaa u dana inay dadkii wadanka kusoo dhaweynayaan yihiin dad maxay heeday wax wadankii gelinaya hadday noqoto inay dhaqaale gelinayaan hadday noqoto inay maxay heeday ay wadankii wadamada kale ka iibinayaan sida social media oo kale marka aad bay u tixgeliyaan dadka maxay heeday adu waa inaad wadankii halka aan ku sii daro wadankii waa inaad wax ku soo kordhinaysa iska joog maaha meesha waa inaad wadankii wax ku soo contribution waa inaad yeelataa haddii xitaa family oo kale waa degi karaa laakiin waa inaad family ama meherad ha furtaan oo sharciga ha ku qaataan ama dee wax kale ha samaystaan oo beer ha iibsadaan oo ha fashaan ama horta de way jiraan familiyo Soomaaliya walibana oo ganacsiga kule de Kigali way jiraan way buuxaan waana dadka maanta halkaas inaga de maxay heeday qadiyadana geeyay hadda noqoto dhanka Soomaaliland iyo dhanka Soomaaliya way jiraan xataa sheekhiyo badan oo maxay heeday adaaba joogay barigaas sheekhiyo badan oo yimid oo wacdi ka jeediyay oo Quraan competition lagu qabtay marka wadanka Sheekh Abdurashiid baa kamid ah ma sha Allah marka way jiraan marka dadkaas inaga qadiyadana halka geeyay aad ugu mahadsan marka waxaan leenahay halkaasaan muuqaalka ku soo gabagabeynaa waxyaabo badan oo aad Rwanda jecleyd inaad ka ogaato ayaad muuqaalkan kaga boogan doontaa su'aasha ugu badan oo ah visa on arrival ma yahay baasaboorku labada baasaboor Soomaaliland iyo Soomaaliya waa yahay waxaanu leenahay muuqaalkan like share and comment meel dheerna gaarsiiya midda kale landriska waxaan leeyahay calanka meel fog laga calanka ninkana channelkiisa haloo kala kicinayo ciideena way soo dhawday insha Allah waa inoo iyo 18 see you